reer Texas oo 19 jirka ahayd isbuucii kadib arooskeedii maxaa sababay dilkeeda. Assalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga soo dhawaada meel kasta joogtiin walaashiin inaawiya ayaan waan kala maqnayn maanta waxaan wadaa qiso yar oo xoogaa iska isla socod wanaagsan. qisadan waxay ku socotaa 3 qofood waa ninka ilaa hadda u xukuman qisada oo runtii red lahaayo iyo gabadha status iyo ninkeeda 1996 status waxay la nooleed ninkeeda Jimmy asigoo sarkaal boolis oo ka tirsan ciidanka markaas Boston magaalada ay ku noolaayeen maalmaha kamid ah waxa la waayay status markaas waxay la nooleed ninka ayada qabo subaxnimaasna waxay aaday meeshii ay ka shaqeyn jirtay waxayna ka shaqeyn jirtay dukaan raashinka lagu gado oo ayaga agtooda ayada ma haysan wax gaari ay shaqada ku aado mar waxa qaadi jiray ninkeeda marna waxa raaci jirtay gaariga dadweynaha maalintaas waxa la sheegay inay qaadatay gaariga ninkeeda sasna ay shaqada ku aaday kadibna waa la waayay waxa maalinta dambe 3 saac iyo bar subaxnimo la soo helay meedkeeda asigoo yaalo dhinaca railway wadada weyn dhinaceeda kadib baaritaan dheer kadib waxa DNA-geeda gabadhaas waa la kufsaday waana la dilay si xun loo dilay waana la kufsaday meedkeedana meesha la dhigay maalmo kadib baaritaanadeeda 7 qof DNA laga qaaday oo iyada loo baaray 7 qofood sama bixin dadka iyada u dhawaadaan family asxaab intiba la baaray waxba kuma soo bixin laakiin ninkan oo Ronnie Red la dhahayo ay isku dhinac noqdeen qofka gabadha dhibaateeyay iyo asiga intii musan ahayn ayada asxaabteeda ama qofka ag dhow familkeeda ama area-daas markaas ay degan tahay marka waxa fududeeyay in la soo qabto oo kiiskeeda loo baaro gabar kaleeto oo obigeysatay gobolkooda ku dhow kaasoo fududeeyay in kiiska gabadhan dib loo baaro sababtoo ah waxa isku ekaaday gabadhan obiga soo dirsatay iyo gabadhii hore oo dhimatay oo jinkiiskeeda ayada dib loo furo oo baaritaan kale la waxay sababtoo ay kiiska gabadhan obiga ay soo gudbisay iyo gabadhii dhimatay sidii uu dhacay same ay ahaa isku mid ay ahaayeen kadib gabadhan waxay bixisay sawir sida farshaxanka qofka marka ciidanka u tago wax adqaanin soo maahan oo laga sawirayo uu sheegay qaabkiisa sawirka ninkii la qaaday waa la soo qabtay waa la soo xiray waxaaba soo baxday inuu dad badan soo abuse gareeyay gabdho badan kufsi oo hore u soo geystay iyo jirdil marka kiiska hore yaanaygiisa iyo asiga la isku baaray sidii uu ku soo baxay taas fududeysay in runtii loo xiro gabadhii dhimatay kadibna saas uu ilaa hadda xabsi ugu jiro runtii waxa lagu xukumay dil toogasho taasoo lagu sameyn doono cirbad sanado badan 2020 u dambeeyay ku jirto waxa la isku dayay in lagu sameeyo dil toogasho laakiin wuxuu haystaa shacbiyad aad u weyn taasoo kamid tahay dad caan laakiin oo kaleete dad badan ayaa markasta racfaan soo siinayaan sidaas uu ku badbaaday ma kula tahay ninkan in oo cunsirinimo lagu sameynayo maadaama ninkeeda gaarigiisa ku baxday hadana waa la dilay lahaay ma kula tahay ninkeeda inuu yahay qofka dilay ama ninkan maxay tahay sababtu u yeeshay shacbiyad badan maxay tahay sababtu u yeeshay shacbiyad badan asigoo la ogyahay inuu yahay qof dambiile ama dambiye badan ku soo baxeen mase waxaan dhan waa kiis siyaasadeysan sida dadka qaar ba aaminsan yihiin runtii wuxuu ahaa qof boxer ama feeryahan hooyadiisna waxay ahayd nursing abisna wuxuu ahaa qof oo maxaa askari marka wuxuu ka soo jeeday family sumcad leh oo dadkana ninkan aad ay u taageeri jireen marka saas uu shacbiyad badan ku yeeshay hadana uu xiran yahay waa maxbuus lamana tooganin kiiskan ilaa hadda sidii ayuu u qasan yahay kula tahay daawada kiiskaasi ku foorara Jimmy ama ninkan commentiga waxa ka faanta commentiga nagu soo reeb wax ka rajeynaa inaad subscribe ka free iga dhigi doontid like share ka free bye bye